Kwa majina naitwa Halima Ismail, niko katika kidato cha 4. Tunakushukuru sana kwa usaidizi wako. Tunakuahidi kuwa tutapita mtihani wetu wa KCSE inshallah. Asante sana. Asma Anissa, a Form 4 candidate. I really appreciate you, Madam Khatra, for bringing us this certificate. At least now we can do exam with no problem. Thank you very much. My name is Shukri Abdullah. I'm standard 8. We want to thank Mheshimiwa Khatra for giving us this beautiful gift. We'll make her proud, inshallah. Mheshimiwa Khatra, tunashukuru venye umetukujia. Asante sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waxaan waay Mheshimiwa Khatra nasirat socdaalkayga marka saddexaad waay. Waxaan joogaa magaalada Burra hadda ku suganahay. Maanta waan soo wareegay waxaan soo gaaray Burra ward Nanigi ward kasoo bilaabay Warable Kamude Baqdeera Nanigi Taqal Burra primary school boarding Fafi Girls High School gabdhahan ku soo wareegay candidates ka imtixaanka alaab yar aan ku keenay bursooyin iyo encouragement aan siinay oo gabdhaha imtixaanka galahayaan oo laha waa idin ku xisaabtamayna annagana insha Allah ta'ala ilaahay aan baryayna maadaama aan deegaanka Fafi ka imaaday aniga nominated MC aan ahay marka mas'uul baa iga saaran inaan maaragtay ilmaha imtixaanka galayaan maanta oo degmada Fafi iyo Garissa County inta u dhaxayso inaan haddaan awoodo aan soo buuqdo oo maaragtay waxaan ku kaalmeyn karo ku kaalmeeyo iyo hadalbo wixii aan awoodana waan u geeyay wixii kalena hadii hadal baan kula kaalmeynaya maadaama ilmaha imtixaan culus u soo food saaray stand 8 iyo secondary maaragtay ilmaha waxaan lahaa niyada dhista ha cabsanina imtixaanka gala waalidin ku xisaabtamaya dad baa idin sugaa waalidiin baa idin dhaleen dooyooyin iyo abooyin ay idin sugayaan dad danyarow baa na dhalay anagoo dhan dad masaakiin ma na dhalay ilmo taajiriin ma nihin waxa ogaatiin qalbiga dhista anagoo idin ku xisaabtamaya idin sugayna ilaa idin soo baryayna inuu ilaahay imtixaanka niyada garab galo tan labaad meesha hadda aan ku suganahay Burra ilaa intaan soo socday meesha kasta aan soo marayay waxaan u jeedaa maartay abaar xun baa dhacaysa abaartaas dhacaysa oo jirto xoolaha way ooman yihiin dadka uu iska rafaadsan yahay waa la baahan yahay meelaha looga baahan dadweynaha in gargaar loogu sameeyo waaye dadka waxaan rabnaa madaxda inay soo baxaan abaarta dadka ka soo hoobaan dadka ay soo ceymiyaan dadka biyaha loo baahan yahay baad baa loo baahan yahay wax la cunaa loo baahan yahay qasab ma aha in maartay xoolaha garaax biyo la siiyo waqtigan jiilaal waqtiga ugu xumaa kala dambeeda lagu jira dadweynaheena na soo doortay Garissa County waxay u baahan yihiin la gargaaro khaasatan Fafi maanta wax ka dhib badan abaar hadda la dhaw malaha Lagdheera iyo Fafi aad bay u saameysay abaarta marka waxaan codsan lahaa fariin aan u farlaa mushimaayaasha degmada laga soo doortay mudanayaasha Mheshimiwa Cabdikariin Cusmaan Rati waxaan leeyahay Mheshimiwa dadkaada ku baahan ummadaada waa gaajaysan tahay ummadaada way dhumahaysaa oo baa jira abaar xun baa jirta fadhiga ka soo bax meesha ku jirto ka soo bax dadka u umo kaara dadka caawi waa la ooman yahay wata tracking baa lagaga baahan yahay degmada kore hadda Faafida kore aad baa looga dhumahay oon waxa loo baahan yahay dadka in loo gargaaro booyada biyo loo gargaaro oo raashin loo geeyo CDF waan garanaynaa dhaqaale fara badan bay dawladda waalgelinaysaa CDF kali hadii lagu fasaxo hatta waxa ku jirta lacag la dhigay emergency kit emergency fund lacagteeda kali dadka maan soo hoobi kartaa waan garanaa CDF aan ku soo jiray washimo sugo committees aan ku jiray emergency kit kali aan dadka ku caawin jirnay wata tracking nan Fafi way ku filneed waa laga dhergi jiray marka waxaan rabaa lacagta emergency kit Mheshimiwa Cabdikariin lacagta ha cunin jaabka ha gashanin dadka uu baahan yahay raashin dadka u keen lacagtaas biyo ku soo gad booyada bixi raashin dadka oo gargaar abaarta biyaha oo dadka gaarsii magaasha ka soo bax lacag kale oo dheeraad ah haysata walaalo macaano walaal baan nahay waa wala dhalay runta isku sheegayna waxaan ku leenahay lacagta Fafi maanta u maanayso oo walban waa 1.4 billion lacagta faraha badan maanta adiga gacanta ku hayso waxay u dhigmataa 3 xilibaan oo ninkii oo 5 sano soo waa 10 sano 3 xilibaan lacagta soo mar laheeda walban adiga maanta gacanta ku hayso lacagta is too much kaliyeeda dadka deeqay 1.4 ciyaar maaha waxaan ku dhihi lahaa lacagaha saydo hamis use garaynin
CDF تبى بلقى هي أبارة حنا جرتا دتك سوق رجع دتك سوق دتك ويرفات سنين حي الأديك هاد ملاسات وروريجا هيسا برين بلا ملا ضربت شيء هيسا وما ضاعوا يدوم هيسا ماشي لقى صوتور تأنا كجرا باهي كجرتا دتك ورفات سن ماشي كان كدعيسو دتك كان كدعيسو دتك صوت أحمر بيها كينا باتك كينا راشين كالعقد إماجنس كتير راشين كساقط دتك وقيب باديها وريك لعقد والبن أتكون مشغولة يسوي كلية قومي ماتو والبن لأنه وهليا لقديرة بلقهليا داب هجرتا أو بدل ما أنت دلت أو لعقد والبن دلفير لبجبار إنه قنيسة ومدة كلا ومشي كان أدي ما كان مغلى هنا والبن كان أو قرح بكن واحد ضمها لعقد والبن فرع كويستا TCDF هذا كل دقيقة لعقد والبن أنا وين يا من أسوي دني لعقد والبن أدي معن ربطة مسؤولية صرفتها سيل ربطة برينجو ما أقولك صرفتها لعقد والبن أنت تكشوا هاي TCDF تي والبن لما بهايه marka waxaan ku leenahay dadka ummadda dhumahay soo gargaar dadka biyo ku waraab lacagta wata tracking ku samee raashin gad dadka baadiyaha ugu tag dad wax u qaybiyo abaar kula jirta waqti kala dambeed waqti ugu xumeeda lagu jira ummadda maanta dil soo hoobi waayo dad muslimiin baan hay mas'uul baan naga saara khiyaamo wal wala xisaabtan aakhira su'aash aad ka kicin waa xilka qaad xoolaha lagu dhiibay aad gudbin wayso danna kuma jirto mashimo waxaan ka codsanaynaa sida ugu dhaqsi badan faafi maanta way dhumhaysaa inaad soo gaarto oo ummadda maanta way baahan tahay waa la ooman yahay aad sida ugu dhaqsi u maato fadlan waan ka baryaynaa anagoona xumaan naga ahayn nacna kuu qabin anaga kula dhalan runta isku sheegaynaa walaalo macaano waxaan rabnaa ummadda inay u soo gargaarto sida dhaqsi xoolaha hayso ummadda iskale haddii la dhaho shaqo qabad iyo howl qabad county government waad ku mashquulahaysaa waa u jeednaa ummadda kale way joogtaa kaliya aan baa sheegaysaa lacagta had guryaha quruxda badan aan soo maray oo state lodge $170 milyan oo contractaad ku qaadatay wiilal ajaanabi aad kabta meel daran ka keentaan si qandaraas isla cunteen we know that intaas oo lacag cunto waan ognahay ka fara badan baa haysaa afka qoriyana iska galin mar wax sheeg mana sheegayno diyaar ma niin doodna ma rabno lacagta $170 milyan ku deeqwaasay walban ma ku dari CDF ma ku dari aqli ma aha ummadda u soo ciidan abaartan xun kal dambeedkan ma ninkii ku caawin waayo dambe ma rabno dambe ma rabno anaga hadii aan dadka reefaafanahay mar qalad uu naga dhacay mar labaad ma naga dhacay Soomaal maxay tir mar idagoo mar labaad ima dagay Soomaal haduu idagalaan asiyahay hayl marba indhaha isku qabsanay oo ma artay imported vote and duration laga keen noola keen oo dhabar ka saaranay oo kursi ku saarnay adoo meelaha ka imaad waliga kuura dhulkan ka ridin yaan gambar ku saarnay waadna soo hoobi laada dadku wax u qaban laado yaba ka toobsanayna diyaar buu ma niin mar dambe meelaha la keen dhabar noola saaro wiil meeshan ka dhashaan gambar siisanayna anaga oo faafi ka dhashay way ahayn waxa soo xoolaha ku fadhiyo xoolaha ayaga soo bixi dadka u keen sida ugu dhaqsi badan abaartan dadka soo hadaa deeli wayso anaga waxaan ku leenahay hanti adoo haysato man dawladnimo haysato walban xoolaha adduunka haysato hadaa ummadii faafi maan u soo gargaari wayse way ku dhamaatay waa un lagu xir wiil meeshan u dhashaan gambar ka siinayna anaga way ahayn soo ugu dhaqsi badan soo noqon